Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada hordhac ku saabsan pharmacology. Cashirka koowaad ee barashada daawada. Pharmacology. Haddii aan qeexno pharmacology, waa cilmiga lagu barto waxtarka, waxyeelada iyo qiyaasta daawada. Haddii aan si kale u qeexno, pharmacology waa barashada daawada. Ereyga pharmacology waxaa loo qeybiyaa laba qeybood oo kala ah: pharmaco oo micnihiisu yahay daawo, logy oo micnihiisu yahay barasho. Asal ahaan, ereygan pharmacology waa erey af-Giriigi ah, waxaana loo aqooni jiray pharmakon. Drug micnihiisu waa daawo. Ereyga drug asal ahaan waxa uu ka yimid dalka Faransa, waxaana loo aqooni jiray dry herb oo micnaheedu yahay geedkii qalalnaa. Qofkii ugu horeeyay ee furay goobo lagu barto cilmiga daawada waxa uu ahaa Rudolf Buchem, waxa uuna bilaabay sanadka marka uu ahaa 1847, waxa uuna u dhashay dalka Germany. Pharmacology waa laba laamood oo waaweyn oo kala ah pharmacokinetics, pharmacodynamics. Pharmacokinetics waxaa loo kala qaadaa laba oo kala ah: pharmaco oo ah daawo, kinetics oo ah socodsiinta daawada. Pharmacokinetics waxa ay ka hadashaa sida ay daawada ugu dhaqdhaqaaqda marka ay jirka soo gasho. Ugu horreyntii, marka uu jirku nuugo daawada, waxa uu marayaa 4 marxaladood oo kala ah: metabolism, absorption, distribution, excretion. Mid kasta waan qeexaynaa. Metabolism waa habka daawada loogu burburiyo jirka, kadibna la raacsiiyo dhiigga, waana midda ugu ballaaran ee qabata shaqada daawada. Xubinta u qaabilsan burburinta daawada waa liver-ka oo ah beerka. Absorption waa habka loo nuugo daawada kuna gasho dhiigga. Distribution waa habka daawada ugu baahayso jirka iyadoo sii dhex maraysa dheecaannada iyo nudayaasha jirka. Excretion waa habka looga soo qashin saaro daawada jirka. Xubinta ugu weyn ee u qaabilsan qashin saarka waa kidneys oo ah kelyaha. La soco qaybta labaad barashada daawada maalin kasta oo Jimco ah, saacadu markay tahay 4 galabnimo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, saaro calaamadda subscribe-ka, isla markaana taabo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto fiidiyowga aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan.